السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتم الواجبتان أنت بيجي كحرين أجرون ميديا وعليه السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو أسبوع كهر وحن كهذا برنامج كي هاي كورونا فيروس ما كان كهذا إن ودن كان كسونا كينيا مسوقرين لكن ما أنت وحكسونا هاي كينيا أسبوعي لصو في صدح روح دولة كينيا عديس إن لغا هلي حد يرتانا وحماق لا كيس إن سياري تمن روح ناك حد يستار كجرتو ناك تاس كل الله سمعيان عذرنا يا قبطو سياري تمن كاروح لله يعني ودولة دينا يكورا جوكتو marka waxa kale oo inta dheer waxa xirmay dhamaan adeegyada bulshada oo ay kamid tahay dugsiyada la aqrista iskuulaadka goobaha shaqooyinka oo hay'adaha ay ka shaqeeyaan inta way xiran yihiin waxa intaas dheer hadana oo muhiim ah oo hadana xiran oo waxa loo ka sii muhiimsan gaadiidkii iyo socodka bulshada yaa xirmi rabaa wixii ka bilowdo beri ama caawa 6 saac aan qabno wixii ka bilowdo waxa xirmi rabaa socodka gaadiidka iyo bulshada سواماتك بالشدة حملوا جديد كسده جديد كقدرت كانوا يصيروا قدرت العالم حكمية قدرت سد يعني وكلا كبسر علنته ذاتك استعمالان وحياة أنت بدل جمعها فرح بدل نسمع السد برادات وكلا أما في كازيكا يا حملوا قدرت أنت بدل ما حرم يسا قاد كوكلا ذاتك وكحر ما ذاتك مغيلين تعسيه وتلاقي أنا ما أنت وكلا قاد مجرى يالله قاد كانوا حرم marka cudurkan waxaan ka hadlaynay oo bulshada iyo dadweynaha iyo culimadiinta iyo waxgaradka ay ka soo hadlayeen in muddo ah inta wadanka soo gaaran haddana wadanka lagu sheegay marka insha Allah dadku waxaan faraynaa waxyaalaha waxa jirta dadka la sameeyaan waxa kamid ah inay gacmahooda dhaqaan mar walba waa koo muhiim waay inay gacmahooda dhaqdid waa muhiim inaad wajigaada iyo indhahaada iyo sankaada aad dardarina loo baahan yahay waxa uu leeyahay cudurkan waa respiratory system way lung system way affect gareynaa sida sanbabada iyo beerkii waxa soo dhib u keenaya ruuxu astaamaynta loo garan karo waxa kamid ah inuu khunfac sameeyo inuu hindhish sameeyo ilaa uu kuna in maxaa la jiro qandha kala jibis leh oo kuleel badan ay soo saarto hergab waxaan ku bilaabanaa sida limon hamad u galaya marka astaamaynta noocaas ah ku artid dowladda Kenya خاصة قبل وزارة عافماتك وحسوسات اللمبرة لو ترجع إلا وعى اللمبرة ده وعى روح حب تلفون كل ودن كينيا لمبرك والله صدر وايستان مرة إن شاء الله اللمبرة ده هلا وعى ذاتك هلا ورجلي هلا شيء عذر جريء وياي عذر هلا سير ويا ذاتك هلا شيء ودن تلاقي وكلا هل ما نبده الله بقول يفتح روح على الصو تبي يكون إنت وهل ما نبده marka waa cudur oo sida la sheegay sidii hergabka loo kala qaado ama loo kala qaado way ruuxu haduu ku daaro haduu ku soo dhawaado neeftiisa ku soo baxdo haduu ku jiro tilaabo yar masaafeer oo tilaabo ah haduu ku jiro ku soo dhashay dhishiisa ku soo gaarto ama qunficiisa ku soo gaaro saasa cudurka ku qaadaysa marka waxa kale oo faray xagga diinta markaan u beero marka koowaad inay ka dhigayd adkaarooyin la aqoonsta jirtaanta corona ka soo hadlay muuqaalka kaga horreeyay oo kaga hadlay waxa kamid ah in adkaar aqoonsto oo Ilaahay ka barido inuu Ilaahay cudurkan ka wareejiyo Maxamed sallallahu alayhi wasallam khayr khalqillah wuxuu ka aqoonsan jiray adkaar uu ka aqoonsan jiray wuxuu jiray bismika allahumma inni a'udhu bika min al-barsi wal jununi wal judami wa min sayyi al-asqam waxa laga wuxuu ka duceysan jiray baras waa taqaanin horna u soo sheegay waa cudurka dadka ku dhaca oo dadka jirkiisa bedelmo oo meelna cad meelna madow ruux jirka ila wajigoodan ila korkoodan bedelma waa barasta alla cudurka Soomaali waxa kale oo ka duceystay junuun oo ah xanuun maskaxda ku dhaca ruux dhimirkiisa bedelmo oo ruuxu waasho cudurkaas waalidin uu ka duceystay wuxuu kale oo ka duceystay cudurka la junami mina hala cudurka junum yalla judam hala cudurka dadka cuno dadka yani cudurka kugu dhacaya waxa u baahanaysaa dhigid binaadam baa u baahanaysaa ama hilib binaadam cunto markaas jirkaada wuxuu uga roonanaya
kadib uu soo noqonaya cudur jirkaada ka baxay ma noqonayo mar walba waxaan noqonaysaa ruux carruurta laga ilaaliyo ama carruurta dhibaateeya noqonaysaa cudurka judan baa lahaa dadku ku dhaca asna waxaa kaloo ka duceystay oo miseel asqaan cudur walba oo xun buu ka duceystay oo xun oo dadku ku dhaca sida AIDS oo kale cudurrada xun oo dhan buu ka duceystay marka bariga AIDS waxa anaga ma jirin baan malaynay waxaan hadda soo bixin oo wax binaadinka lagu afeenayo marka shaqayaasha qaarna waxay sheegeen in lagu badbaadi karo haddii aa isticmaashid daawooyinka sida xabasowdada oo kale liinto biyo diiran ama biyo yar kulul qandac ah ku shubtid oo kale aa isticmaashid in lagu badbaadi karo shaqayaasha way sheegeen kala daawahnaaga dhow intaasna lagu dadaalo xabasowdo waa la sheegay waxaa la sheegay timirta oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u beero kamid ah oo ayadana la isticmaala jirta soo xabal toddoba xabaa isticmaalaysa guriga ay taalo haday yeelno la heli karo la soo gadan karna soo gada insha Allah intaas la isticmaalayaa siyaabaha noocaasna ka badbaadi karta hadduu ilaahay uu kugu saweyn oo dhimtid wax markaa u dhimanaysid wax sabab lagaaga dhigay wax markii sabab lagaaga dhigay u dhimanaysa haddii aan sabab lagaaga dhigin uma dhimanaysid waay marka insha Allah cudurka noocaas waay waan cudur socdo bulshadu ku dhex faafay waxaan farayaa dhammaan in feejignaan la sameeyo bulshada gacmaha inaad dhaqdaa mar walba oo saabuunta ay ku diyaar noqdo haddii musqul ka soo baxday iyo haddii aad guriga joogto musqul ka soo bixin oo mar walba aad baxayso banaanka haysid dad islaam baan nahay salaamtu waa muhiim waa Abubakar as-Siddiq iyo ninka asxaabta ka mid ah markii dadka ay ganacsi ay jireen waxa la soo xidhay bixi jireen waxay faafin jireen salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta faafin jireen marka salaanta muhiim ah ruuxa islaamku waa salaamaysa salaada waa la aadaya laakiin waxa sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ruux cudur markuu wadanka ku dhaca wadanka ku sugan tahay wadanka ka bixin wadanka ku sugnaa haddii wadanka ku sugan tahay wadanka cudur ku dhaca wadanka ka baxay wadanka cudur ku dhaca tagin koy cilmigan saa usi burmay laakiin waxaan jeclahay sheekaash inay ka hadleen xalayto kale wax maqlay in sheekh la soo firisay idaacada BBC idaacad kamid ah BBC ay tama garanay la soo firisay oo la wareysanaay oo si toos ah uga hadlay in alla tay karin meelaha oo aan saar ugu soo dhawaan cudurka jiro marka insha Allah kulli anaga waxa ogna meesha loo cararo haddii dib u amaadeen uu yahay ilaahay anaga naqalqi koomkan na keenay ilaahay waxa walba agtiis way ka saalan yihiin waxa walba intuu kala kun faykuun waay wax kale iska day marada aakhirada dilla kun faykuun dilla wuxuu ilaahay amray noqonaysa haday noqoto haday mas noqon lahayd iyo haday dib kugu noqon lahayd iyo haday kugu dhigi loo jirka intee ka shaqada ku soo guuleed ilaahay agtiis waxba kama naxo ilaahay agtiis waxa walba uu sameeysan karaa waxa walba uu amri karaa amarka asay ka amata marka insha Allah amar taas jirta beejkeedana lagu xirnaado videogeena la sheegareeyo dadka kale oo asxaabta la wadaag filmkan si ay ayagana aga faa'iideystaan macluumaadka ku jira meeshan la wadaag waxaan ka hadlayn wax kale ma ahan waa cudurkan coronavirus oo adduunka ku noqday disaster oo ka soo bilaabay wadanka China Koonfurta Korea Soomaaliya Talyaani Soomaaliya dad badan soo laayay Mareykanka galay Ingiriiska galay oo haddana Afrikada soo galay Afrikada bare soo galay Afrika ku dhex jiro oo ilaa iyo hadda saan u laaynahay ilaa geeska Afrika lagu sheegaya oo xitaa Soomaali inuu galay dad badan baa la soo toonay ka soo sharaxta la sheegeen oo nin Soomaali inuu starta ka dhahay wax xanuunsanahay kadib markii la baarnaa inuu qoto been marka insha Allah beenta Allah ku ekeysiyo wallahi dhibaatooyin fara badan iska jiraan tan kale waxaan u sheegayaa culimo diinka meel way joogaan barigoor markii dib la arko ama kuleel la dareemo waa la bixi jiray waa la duceysan jiray banaanka la aadi jiray dadka banaanka u bixi jireen geedo hoosto inta neef ku qashaan iyo albar sameyn jireen haday roob ay rabaan ilaahay roobka u keen jiray dib haduu saarin ilaahay dibka ka qaadi jiray marka insha Allah taasna u sheegayaa culimo diinka waa fartiin waxay iga tahay dardaaran bay iga tahay meel bay ku sugihiin meel loo cararan ilaahay ma jirto ruux walba uu dhimanayaa ruux walba uu xanuunsanayaa ruux walba dib uu soo maray laakiin dibka waxa keena waa ilaahay waxa loo noqdo dibka qaadan waa ilaahay waxa la barin waa ilaahay bin aadan bariis wuxuu ku matalas waxa laga yaabaa afartan cirbida ugu daran oo ugu fiican oo ma loogu tirgalo cudurkan COVID-19 in lagu mudo laakiin hadana waxay ku qawlaan oo suurtagal ayadana laakiin ilaahay cudurka ku soo saar ilaahay ka leexin kara oo kugu ridi kara oo ka qaadi kara sabab kaaga dhigi kara oo ku dili kara ogow waxan waa dabeel socoto
waxaan waa cudur socdo saf waay ilaahay baa keen ilaahay ka qaadi karaa marna ha ku fikirin dhaqaala adduunka wadamada ugu dhaqaalaha badan baa intuu soo maray intaasoo qalqi ku soo deeyay intaasoo ruuxna uu isbitaal soo dhigay awood ma leeyahay awood ilaahay u sugnaatay laakiin anaga hadda Afrikaan joognaa muddo ku dhawaad bil iyo wax noocaas muddo laba usbuuc cudurkan waa laga sheegay wadan gudihiisa laakiin xisaabta la sheegay inta uu hadda la leeyahay way la noolin cudurkaas ayaa waxay noqdeen xisaab yar aad u yar markii loo barbar dhigay wadamada sida China iyo Talyaani iyo Ingiriiska iyo Mareykanka maanta dhaqaale badan ilaahay uu siiyay awood ilaahay u dhiibay kulay waa dareemi kartaa ilaahay awoodiisa waa dareemi kartaa intay laagtaa waa dareemi kartaa cudurka meesha ku soo bilowday maanta meesha taagan yahay daqiiqad gudaheeda waa maalimo waa laba usbuuc saddex usbuuc waay waa arkaysaa meesha intuu wadano soo laay inta ruux u dhibaateeyay marka insha Allah page-kan inta ku xiran Juran Media waxaan leeyahay idin salaamaya hal ugu xirnaada page-keeda hal la gareeyo hal shey gareeyo aan la baqayleen subscribe insha Allah